waxa inoo ballana isla xisaabtan iyo daahfurnaan waa ku celinayaa waxa inoo ballana isla xisaabtan iyo daahfurnaan markan waxaynu doonaynaa raadkii colaadda iyo dagaalka raadkii dib u dhaca deegaanadeenna haystay muddada dheer inaan reebno oo aynu u jeesanno horumarinta deegaanadeenna iyo dib u dhiska dalkeena daahfurka cashuurihii berriga ee gobolka Cayn cashuuraha berrigu waa maxay ka dhigan tahay maanta inaan daahfurro cashuuraha berriga gobolka Cayn ka daahfurro maxay tahay muhiimadda ay inoo leedahay gabi ahaanba in cashuur la qaado cashuur la bixiyo dadka maynu waxooda isaga dayno haystaan cashuurtan berriga ee maanta la inoo daahfurayo waa qaybta ugu muhiimsan uguna xoogga badan cashuuraha ay qaado wasaaradda maaliyaddu waa qaybta ugu ballaaran lana doonayo inay ka soo xerooto dakhliga ugu ballaaran ee ugu badan ee wasaaraddeena soo gaaraya waxaa iminka inoo shaqeeya cashuurihii waaxda kastamada waxaynu bilaabaynaa haddii ilaa yidhaahdo cashuurihii berriga hadday noqon lahayd kuwii tooska ahaa iyo kuwii dadbanaaba kuwa tooska ahi waxa weeyaan in qofka muwaadinka ahi ama ganacsada ha ahaado ama shaqaale ha ahaadee cashuur toos oo isaga ku dhacaysa uu bixiyo taan tooska ahayn ama dadbanina waxa weeye in uu ganacsadihii cashuur qaado aan culayskeedii jeebkiisa aanay ku dhacayn isaga tusaale ahaan shaaha laga cabayo kafateeriyaha waa inuu barayskiisa ku daraa cashuurtii maaliyadda isagaa qabanaya isagaa wasaaradda keenaya laakiin culayskaas isagoo ku dhici maayo ama ha ahaato cashuuraha tooska ah ama kuwa dadban ha ahaato waxaynu doonaynaa in si xamaasadi ku jirto oo niyad samaani ku jirto looga hawlgalo yaa ka hawlgelaya markaa waxaa ka hawlgelaya muwaadin kasta oo reer SSC muwaadin kasta oo reer Caymeeda muwaadin kasta oo reer Buuhoodlaba ka hawlgelaya haddii aan si isku mid ah loogu hawlgelin shaqo dhammaystiran inoo qabsoomi maysaa wasaaradda maaliyaddu waa ka hawlgelaysaa mas'uuliyadduna iyaday ku dhacaysaa maxay tahay mas'uuliyadda ku dhacaysa wasaaradda maaliyadda ee hawlwadeenadeeda soo diyaarinta barnaamijka cashuurta lagu qaadi lahaa diyaarinta shaqaalihii cashuurta qaadi lahaa oo xirfad iyo tababar intaba ku qalabaysan inay diyaariso hannaan daahfuran oo cashuurtii lagu qaadi karayo lagana arki karayo laga dheehan karayo halka cashuurtii muwaadinku bixiyey ay ku dambaysay qodobka aynu il gaara u yeelanno aynu fiiro gaara u yeelanno daahfurnaanta dawladda iyo wasaaradda maaliyadda daahfurnaantoodu waxay shardi asaasiya u tahay cashuurta la doonayo bixinteeda haddii anigoo muwaadina aan saluugsanahay sida wax u baxayaan waxaagadaas igu soo dhacaysa haddiise aan arkayo wixii layga qaaday ee jaalkayna laga qaaday say u baxayaan ee daahfurnaanta leh ee aan musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta lahayn markaasaan ku qancayaa inaan waxayga bixiyo oo aan anigu ku tabaruco iyadoon layga soo doonin hannaanka daahfurnaanta leh xirfadlayaal iyo aqoon-yahano u tababaran shaqada ay qabanayaan waxay shardi asaasiya u yihiin waxay dhiirigelin u yihiin in muwaadinku cashuurtiisii niyad sami ku bixiyo waxa jiraya mid aan niyad sami ku bixin doonan haddii Ilaahay ka dhigo haddii qofku cashuurtii ku waajibtay haddii uu bixin waayo sharciga ka qaadaya qofka markaa sharcigu muquuniyay wax niyad samaana kuma bixinno marka cashuur waa bixin haddii Ilaahay yiraahdo
waxayse ku wacan tahay in niyad sami iga qaad aynu ku bixinno haddii Ilaahay ka dhigo waa taas cashuurta aynu daah furayno kaliya ma daah furayno warqad la ordayo oo muwaadinkii lacag lagaga qaaday oo meelay martaan la garanayn waxaan daah furaynaa in si daah furan cashuurta la isula qaado laguna xisaabtamo haddii Ilaahay yiraahdo waa maxay muhiimadda aynu ka leenahay cashuur qaadistan la jeclada waa soo khaatira dadka maynu isaga dayno waxooda waxaa dhaba oo la hubaa cashuurta aynu bixinayno haddii ay gacanteena iyo jeebkeena ku jirto waxtarka ay inoo leedahay inaynu haysanno oo aynu jeebkeena iyo khasadeena u dayno waxa la xaqiijiyay inay kaga waxtar roon tahay inay baxdo oo dantii guud iyo bulshada ka dhex ganacsanaysay wax loogu qabto cashuuruhu iyaga wadooyinka lagu dhisaa iyaga xarumihii dawladda lagu dhisaa iyaga ganacsitada u suura geliya in heshiisyo caalami oo ganacsigooda wax ka tara loo maareeyo haddii ganacsadaha kani cashuurtii uu bixin waayo laakiin wadada isku xidha labada tuulo ay go'an tahay gaarigiisina marayo ganacsigiisina marayo wuxuu khasaarobayaa wixii uu daastay wax ka badan waa dhammirkaas kaabayaasha dhaqaalaha cashuuraha laga horumariyaa adeegii bulshada cashuuraha laga horumariyaa caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo iyo amni iyo difaac intaba haddii aadan cashuurtii bixin intaasiba adigay si toosa kuu qabsanaysaa oo ay kaaga badanaysaa intii hore haddii aad aragteen dal dhisan iyo dad horumaray oo bulshadoodu adeeg dawladeed oo hufan ay helayso sirta ku jirtaa waxa weeyaan waa cashuur bixintii iyo cashuur qaadistii iyo iyadoo si wacan loo qaaday si wacanna loo bixiyey oo loo maareeyey dawladdu waxa laga soo eegayo ee bulshadu ka filanayso waa halka u suura gelinaysa inay ka jawaabto filashada bulshadeeda sidaa daraaddeed muhiimadda caynkaasa ee aan dawladnimo ka maarmi karaynin baynu uga gol leenahay dahafurkaa maanta aynu dahafurnay in la geeyo deegaanadeenna oo dhan oo laga howlgalo sidaa daraaddeed mar kale muwaadin kasta oo reer SSC waxaan ugu baaqayaa inuu noqdo cashuur qaade cashuur bixiye iyo cashuur ilaaliye gacmaha isdhaafaa maxaa la yidhi galladi ka dhalataa aynu iska kaashanno dalkan iyo dadkan innagay ina sugayaan sidii aynu u horumarin lahayn waad og tihiinoo waxaynu soo marnay wakhti adag iyo colaad baahsan oo deegaankeenna goob kasta oo ka mida saamaysay mararkan waxaynu doonaynaa raadkii colaadda iyo dagaalka raadkii dib u dhaca deegaanadeenna haystay muddada dheer inaan reebno oo aynu u jeesanno horumarinta deegaanadeenna iyo dibudhiska dalkeenna dibudhiska dalkeenna inaan u jeesannaayo waxaynu u baahannahay sidii shalayta aynu gacmaha isu haysannay inaynu maanta iyo berriba gacmaha isu haysanno haddii shalay aynu ka wada shaqaynayno waajibaad gaara maantana aan ka wada shaqayno dibudhiska iyo horumarinta bulshadeenna waxaynu ku qiimaysnaanaynaa oo aynu ku suntanaanaynaa oo laynagu tilmaamaya heerka uu gaadhsiisan yahay horumarka deegaankeenna ka soconaya maamul curdina oo muddo kooban jiray baynu nahay laakiin inta uu jiray maamulkeennaasi iyo waxa aynu qabsannay waa marag madoon waa kala ballaaran yihiin waxa suurto geliyana waxa weeye maamulkan waxa uu ku yimi rabitaanka shacabka
wuxuuna u taagan yahay rabitaankii shacabka wuxuuna damaanad qaadayaa inuu waalo rabitaanka shacabka waxa uu qabsoomay fadliga ilaahay ka sokow waxa suuro geliyay rabitaanka bulshadeena iyo shacabkeena waxa inoo haray in guul laga gaaro aan ku guulaysanno waxa buddhiga u ah shacab weynaha SSC Khaatumo waxaan ku rajo weynahay aadna ugu himloonayaa in shacabkeennu u diyaar yahay kana dhabayn doono xaqiijinta horumar waara oo qof kasta ku naaloon doona haddii Ilaahay ka dhigo sida loo gaarayana waxa weeye markaan ku celinayaa in maamul iyo shacab gacmaha la isqabsado bulshadeenu iyada oo far kaliya ah ay waxa aynu u baahannahay ka shaqaynteeda iyo ka gungaarkeeda iyadoo far kaliya ah inay isu taagto bulshadeenu bulsho wada jirta horumar gaari karta bulsho wada jirta dib u dhis ka shaqayn karaysa bulsho wada jirta amnigeeda ka shaqayn karaysa bulsho wada jirta wax kasta qabsan karaysa ilaha dhaqaale aynu haysanno waa ku filan yihiin horumarkeena midna waa idin sheegaya qaacido nololeed baa jirta deegaan kasta oo ilaahay uu ku abuuray insaan ilaahay wuxuu ugu diyaariyay wixii uu ka haqabeeli lahaa ee khayraada uu ilaahay ku diyaariyay waa un adiga ka faa'iidayso ama ha ka faa'iidaysan meel kasta oo bulsha ay ku nooshahay waxaa ku hareeraysan ama ku hoos jira khayraad dabiiciya oo ka badan nolosheeda oo jiilasha deegaanka kala dhaxli doona ku filaan karaya abidkoodba khayraadkeennii oo dihin innagii u diyaara inaan wax qabsanno waxaa ka dhalanaya inaynu horumar ka gaadhno nolosha dalkeenna dhisno amnigeenna suganno dadkeennuna ay helaan mustaqbal ifaya waxaa inoo ballana wax wada qabsi iyo iskaashi waxaa inoo ballana isla xisaabtan iyo daahfurnaan waa ku celinayaa waxaa inoo ballana isla xisaabtan iyo daahfurnaan shacabka SSC Khaatumo waxaan u ballan qaadaynaa inay goor kasta iyo meel kasta nagula xisaabtamaan howlwadeennadii wasaaradda maaliyaddu waa fadhiyaa wasiiradii maamulkeennu waa fadhiyaa muwaadin waxaad xaq u leedahay inaad la xisaabtanto oo aad weydiiso waxa ay qabanayaan iyo say u qabanayaan isla xisaabtanku sharcigu ka mid yahay cid sharciga ka weyna ma jirtaa ma jirto cid sharciga iyo isla xisaabtanka ka weyn hufnaanta iyo adeeg wanaagga looga baahan yahay xafiisyada dawladdu waxay saldhig u yihiin in dadkeennu ay kalsooni ku qabaan cidda u shaqaynaysa haddii xafiisyada maamulkeenna ka mida uu galo master jaamac oo uu ka soo baxo isagoo qoslaya oo faraxsan kadibna uu u dabamaro master faarax oo faarax uu ka soo baxo xafiiskii isagoo cadhaysan isweydiin baa loo baahan yahay maxaa jaamacana ka soo farxiyey faaraxna ka soo cadhaysiiyey hal qaacidaan idin siinayaa haddii master jaamaca faraxsan ay officerka ama xafiiska howlwadeenka jooga isku qolan yihiin wax kale isugu soo farxeen wax kale bay isugu soo farxeen xafiiskaas dibigis buu baahan yahay waxa kii isku xaafadda ahaayeen farxad uga soo baxay
kii ka xaafadda ahaana isagoo cadhaysan uga soo baxay dib u eegis buu leeyahay xafiiskaas waa inaan ku xisaabtannaa ilaa iyo heerka ugu sarreeya ee aynu gaadhsiin karno adeeg hufan oo nadiifa oo cid waliba ku qanacsan tahay qaabka u dhacay waa sax maamul curdi aynu gacanta ku haynaa mararka qaar meelaha qaar khaladaad baa dhici karaya laakiinse khaladaadkaasi ma noqon doonaan ilaahay idankii kuwa aan la iskaga daba tegin wixii aqoon darro ku yimaada tacliimin iyo tababar baa lagu saxayaa wixii gaf kale ku yimaadana sharciga loola tigsadaa lagu saxayaa waad ka dharagsan tihiin xafiisyada maaliyadda iyo kuwa wasiirada isla xisaabta baa intaa ka soconaya halwadeennaha shaqadooda ku waaya kuwa cusub baa soo gala waa marag madoon weeyaan soo maaha way soconaysaa waana la sii xoojinaya waana laba jibaaraya haddii ilahay ka dhigo ugu dambayn waxaan kaga baxayaa hadalkayga mahadnaqaan u soo jeedinaya wasaaradda maaliyadda iyo howlwadeennadeeda wasaaradda ganacsiga ee dhammaan wasiirrada halkan fadhiya sidoo kale martidan sharafta badan iyo ganacsiyada ka soo qayb gashay waxaan leeyahay guul baa inoo ballana midnimo inoo ballana wada jir iyo wada shaqayn baa inoo ballana